waxaan bixinayaa 10,000 oo agoon koriska ahay Cabdi Axmed Warsame oo taariikh ku dhintay 10,000 oo agoon koriska ahay baan bixinayaa heladiisii wakiilkiisii baan u dhiibay wakiilkiisii ma tahay wakiilkiisii waa hay أنا أحمد حسن حسين وبيشا سعادة Warsame Ismaan 10,000 oo agoon kariska ahaa anoo nabadon mahla Cabdullaahi Ilmaxaashe aan yaan gacanta ku dhigay 10,000 baan ninkaas taas lacagtii 10,000 ahayd Cabdi aan u qaaday muddo haya جزا الله خير إلى خير هسيو أحمد حسن محمود وكل انتي مقدشة وحانو ديبها يا أقول كورسكيسي أنيقو أحمد حسن حسين ديبيدن وكيل وقاه بيشا سعد وحانو ديبها يا محمود يوسف موسى كل انتي مقدشو والعقديسي طبعا كنا كوركاس وطاقعان تابوهيا waxaa dhiman oo isaga rabaa laba nin oo kale ayaan rabaa iyaguna oo la igu soo wareejiyo oo nin la yiraahdo Maxamed Jaamac Maxamed oo Muuse iyo nin la yiraahdo ina Cabdi Maxamed Cabdi oo isaguna reer xirsiman labadaas baqal loo rahayo doobe jaamac haddii ilaahay idankeeda leeyahay oo dhalashadiisu ay tahay nin ogaadeena dhaqankiisuna uu yahay nin leelkasa oo haddii idanka leeyahay reecal muumin ah oo haddii ilaahay idanka magta ay la wadaagaan wax walba la wadaagaan waxaan rabaa haddii ilaahay idanka leeyahay inaan ogeysiiyo dadka haddii ilaahay idanka leeyahay shirkaan fadhiya waxaan rabaa leelkase iyo sacad iyo haddii idanka leeyahay dawladda federaalka intii ka socota inaan ogeysiiyo ninka haddii ilaahay idinka ilaahay magtiisii waa dhiman tahay waxaan bixinayaa lacagtii agoon koriska ahaa anigoo aan nin haddii ilaahay idinka ilaahay reer jalafa sacada oo reer jalafa magtiisana inaan bixiyo rabo adoogiisana lacagtii agoon koriska ahayd baan ku weydiinayaa intaa shirka haddii idinka xafladda fadhida inaan ogeysiyaan rabo lacagtiina wataa haddii idinka asaga gacantiisa aan geliyey waxaan ahay dhalashadayda waa nin ogaadeena nin reer shaaqaan ahay magacano Cabdi Jaamac Ismaan oo Doombe la yiraahdo Doombe ay magac dheer dhalashadu waa saas dhaqankayga nin reer muumin aadana inaan ahay dhaqankaygu yahay reecal muumin uu yahay waligana degaan Allaah lana dhashay dadku bari iyo buuriyo u dhashay baridii baan ula joogaa ama dhaqan ha noqoto ama dhalasho ha noqoto nabadgelyo yaa hadalkaan u leeyahay lacagtaan qaadina waa 10,000 oo dollar magtiina la ii ballan qaaday dadweynaha Soomaaliya nabadgelyadeeda saa lagu bixinaa wanaageeda lagu bixinayaa waa lagu dawoobaya waa ku dawoobay Cabdi Yaasiin Qaybiye waxaan ku wareejinayaa wakiilkiisii lacagtii 10,000 ahayd oo koriska ahayd oo Cabdirasaaq Aadan Cabdi waad u jeedaan magtiisii way ka dambaysaa anigoo wakiilkii deeq ilma agoonta ilma deeq Yaasiin Qayliye ah magacayguna yahay Cabdirasaaq Aadan Cabdille waxaan u qaaday oo lagu wareejiyay 10,000 oo agoon koriska ahaa oo maslaxada ahaa baan ka qaaday oo lagu wareejiyay guuleed Axmed Ismaan lacagtii oo dhintay lacagtiisa agoon koriska ahayd waxaan ugu dhiibayaa wakiilkiisii Cabdiraxiin Cismaan lacagtii sacad oo wakiilka ahaanta igu soo dhiibay guuleed Axmed Cismaan aadan walaalkay baa dhalay aabihii waa dhintay anaa marka u muqiim mooski u taagan sidaa la adligeed waxaan u qabtay lacagtii agoon koriska ahayd oo 10,000 ahayd waana aan ku qanacnay
بعد وحن وجمهد علينا قبيلة بحسي أقول كوريسكاس أنا كم جاي واحد اللي هذا عبد الرحيم عثمان آذن نكان هنا عثمان آذن بعد ذلك ما هنا أحمد عثمان آذن بوها أديرك أبيه لدش ليبه هي محمد علي حسن oo dhintay agoontii uu ka dhintay lacagtiisa agoon koriska ahay waxaan u dhiibayaa Faarax Cali Nuur oo wakiil ka ah qanacnay waqtana sidii hore buu ragga ula mid yahay magacaasha Faarax Cali Nuur way magacayguna wabillahi tawfiiq adeer baanu ahay wiilka waana ku qanacsanahay waqtana wuxuu kala mid yahay sidii raggii hore kale Bashir Arab baan ku wareejinayaa lacagtaas mid baa efis balaas ah oo sahal ah oo soo tuuraya lacagtaas waa $35,000 weeye ilaa inta meesha ku jira inta maqlaysaba ilaa ugu dambi dhaaf ilaa maslaxada noo taamiyay ilaa taan baan ku weydiisanaa noo taamiyay ilaa nabadda wada siisay ilaa noo taamiyay saddexdaas qof afarta qof soddonka iyo shantaas oo dollar oo dadka macquulka uu ahay ay ugu wareejiyay $35,000 waa aqbalay lacagtiina wataas assalaamu calaykum waraxmatullaahi Axmed Xasan Xuseen maslaxada halkaan la iskugu yimid oo labada beelood ka heshiiyeen 11 nin iyo gabar lacagtooda agoon koriskeedaha waxaan ku wareejiyay oo lacag oo ka timid beesha Saacad waxaan ku wareejiyay beesha reelkase qof walba qofkii wakiilka u ahaa sidaas ay Saacad nooga soo wareegtay beesha reelkasena ugu wareegtay ayadoo qof kasta oo dhintayba wakiilkiisii uu qabtay intii dhimatana Allah u naxariisto inta loo qalbigooda Allah isku wanaajiyo nabad iyo islaaxna Allah na siiyo sidaas ay nooga soo wareegtay codsada waa mahadsantiin haddana waxaan ku wareejinayaa in uu maaragtay isaguna daadihiyo tiradii ahayd dhigayga wakiilkiisii Cali Cabdi ayaan bixinayaa 10,000 oo ilmatirka ahaa cid walba ya arag lacagtaasaan bixinayaa waxaan u hayaa 10,000 oo agoon koriska ahaa oo la bixinayay nabadda beelahan ay ugu tala gashay waa u hayaa anigoo ah Cabdi Cilmi Maxamuud oo nabadoonkiisiiya ina soo wakiishay inaan u soo qaado anigoo ah beesha Cabdalle inaan u soo qaado ninkaas wixii meeshaan samafala oo laga siinahayo 10,000 baan u hayaa agoon koriska ahaa fur waana ku qanacsanahay furkiina waa ka dambeeyaabaa la yiri fur baa wehliyay asaga waxa la yiri farsamada dhow oo hadda uu galahaya hay waka 10,000 waa u hayaa waxaan bixinayaa ilmitirkiisii marka waxaan u dhiibayaa Cabdul Ciise Carabi Cabdul Ciise aan u dhiibay Ciise Carabi anoo ka wakiila noodoonkiisa banaanka u baxay wakiil baan ka ahay waana ku qanacsanahay waana aqbalay 10,000 wakaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh agoon korgiisa oo la ii wakiishay leelkasa ii wakiishay 10,000 baan bixinayaa waxaanan u dhiibayaa xasan cawaale bismillaah waxaan magacayga leeyahay xasan macallin waxaan aqbalay 10,000 oo agoon koriska ahayd oo uu dhiibay nabadoon Carab nabadoon Bashiir Xuseen oo ku magac dheer Carab aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasay wakiisho reer leekasa ii wakiisheen lacagta asagoon koriska inaan bixiyo marka labada maqruum lacagtoodii waxaan u dhiibayaa maxamed cumar dhammaantiin waxaan ii salaamayaa 14,000 waxaan qaaday lacagta ku magacaaban agoon koris haddii kalena la yidhaahdo waa magta bilowgeedii meeshii laga bilaabahayey
oo warjiifigsa la yidhahdaan qaaday waxaan wakiil uga ahay labadaa nin cabdi xirsi cabdi iyo macali cabdi labadaa nin baan qaaday anoo odagoodiya oo nabadoonkoodiya waxaanan mar haddii la bilaabay magta caaradkeedii beesha reer leelkasi lacagta agoonkoriska sidaan horeba inu kugu sheegay inaanu bixiyo marka cali axmed kaash ayaan waxaan bixinayaa 10kiisii agoonkoriska ahaa walaalkiisna waa ku wareejinaya hal mid inaan codsadaan rabaayo agoomihii marxuumiinta ay ka dhinteen dhammaantood muslimiinta meesha isku yimid inuu ilaahay barako iyo khayr ugu bedelo in faataxada loo maraan codsanaya dhammaan muslimiinta ka codsanaya intaa in laga aqbalo midda labaad alaabta lacagta uu ii dhibay 10,000 Bashiir Carab Nabadoonku waana aqbalay waana qaaday horna nabadda inay maarkaasi qaybta koowaad ilaahay u naxariisto walaalaheen qiimihii laga soo qaaday oo ahayd 4 nin oo midkiiba 10,000 yahay magacyadoodana halkan laga sheegay 40,000 waa kuwan waxaan ku wareejin doonaa معلم محمد معلم محمد يا عبد الرزاق يا عبد السلام يا عبد الرزاق oo marxuumiinta wakiil u ah halkana waxaa inii taala 7,600 oo sida aan u kala sheegay ah waa tirsan kartaan qalbigeennu wuxuu halkan iskugu yimid ilaahay inuu burcad isu marsho inaynu gaarno meeshayn u soconno oo gol wanaagsan iyo nabad iyo horumar waara ah ku raalli ahaada noogu samra waxa dhiman waa sidaan uga ballannay waxaan filayaa galabtay wixii ugu horreeyay heshiiska badeerida aan kusoo gaarnay inaan dhammaysan doono 3 inaan u qabanno muddo 3 marka la helana waxaynu muddo u qabsan doonaa xoolaha la yahaa magdheerka waa mahadsantihiin dhammaan ehelka halkan fadhiya mas-uuliyiinta waxaan leenahay raalli ahaada ninkii wuxuu yidhi war meesha kulula marka wuxuu geelayna waa meesha maray danteennii baa soo gadnay inaynu saacala aan macquul ahayn fadhino raalli sidaa ku ahaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa furkii iyo nimankii oo wada socda afartaa isku meesha ku dhintay waxaan u sheegayaa wakiilaadkii baan ka mid ahay iyo nabadaynta iyo haddii ilaahay soo dhaweynta ayaa gacanta ku dhigay waanan guddoomay waanan ku qanacsana qaadanay ugu dawownay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh